رضاك سر عيشي متبسما متأملا بك يا إله الحب يا الله. caafimaadkiina dhammaantiin allah ini hagaajiyo walaalayaal. allah inaga dhigo dad wanaagsan oo ku faanaya diintooda, dad wanaagsan oo fahmaya noloshan adduunka iyo qiimaheega. allah ina ilaaliyo meel walba oo joogtaan. allah ka abaalmariyo walaalahan soo diyaariyey ee isu kin xidhay ee inaga dhigay dad diintiina ka faa'iidaysanaya oo diintiina baranaya. allah ka abaalmariyo. أحبتي وإخواني في الله، وحأرب إنا وحيا أن كتابته آثار المعاصي في الدنيا والآخرة. معاصد دنبيغو قفك سدو غدبي الدنيا آخرة وأرى دينيه. وحاول أقنح معاصد إن إلهي كافوينيس، الله بكافوينيس، إلهي بكحناتينيس وكعريسينيس. شيطان bay ka farxinaysaa, jannaday kaa fogeynaysaa, naxariista ilaahay bay kaa fogeynaysaa, shaytaanka iyo xisbigiisa kuu dhoweynaysaa. macaasidu waa qofka waxa naarta geliya ee ilaahay cadhadiisa sabiba weeyaan. axibbatii fillaah, macaasidu maanta aad bay u badatay. xuquuqul waalidayn, labada waalid in caaq lagu noqdo ayaa batay maanta. waxaa batay shirkigii baa batay, nifaaqii baa batay, gaalada oo laysku eekaysiiyey ayaa batay, zinadii baa badatay, xaaraanta iyo wixii la eegayay ayaa batay, ribadii baa badatay, dulmigii ayaa batay, beentii baa badatay, shahaadatu zuur iyo khiyaanadii ayaa badatay. axibbatii fillaah, macaasidu waxa ay leedahay raad xun ayay leedahay. qofkay ku leedahay, qofkay gaarsiinaysaa macaasidaas sameeyey, waxay gaarsiinaysaa usradiisa, qoyskiisa ayay gaarsiinaysaa, bulshada oo dhan ayay raad xun ku reebaysaa, ummadda oo dhan, waddanka, bal arlada iyo samada iyo badda, xataa xayawaanka badda ku nool ayaa ku dhibaatoonaya macaasida iyo dunuubta insaanku uu samaynayo. أحبتي في الله، qofka way raadaynaysaa, way ku dhibaysaa, adduunkana way ku dhibaysaa, qabriga way ku dhibaysaa, aakhirana way ku dhibaysaa. adduun iyo aakhiraba wuu ku hoogayaa. adduunka waxa ugu horeeya waxay fasaadinaysaa qalbigiisa ayay fasaadinaysaa. waxaan ognahay ilaahay meesha uu eego ina nebi aadam jidkiisa uu ka eego waa qalbiga. nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. ilaahay jidkiina ma eego, suuraddiina ma eego, kani muu buuran yahay, kani miyuu cas yahay, kani muu dheer yahay, kani muu gaaban yahay. hantidiisa ilaahay ma eego. ilaahay meel quraatuu eegaa. subxaana allah, qalbigaagu eegayaa. qalbigaagu hadduu wanaagsan yahay khayr badan buu ilaahay ku siinayaa. in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayra. qalbigaaga hadduu khayr ku ogaado, ilaahay waxa uu ku siinayaa waa khayr. ilaahay agtiisa waxa ugu laandheeraysan, ugu qiimo badan, ugu sharaf badan waa kaa qalbigiisu uu wanaagsan yahay. kaasa ilaahay agtiisa micno leh. ilaahay meeshaasuu eegayaa. meeshaasi hadday wanaagsan tahay, qofkaasi wuu wanaagsan yahay. haddii ay xun tahay, meeshaasi ay xun tahay, intiisa kale waa xun yahay. naartaa loo taxaabayaa, naartaa lagu tuurayaa, looma aaba yeelayo. idan meesha ilaahay uu jidhka uu ka eegayo, qalbigaa ayaa madoobaanaya, ayaa fasaadaya, ayaa xumaanaya. waxaad arkaysaa qofkii oon ilaahay ka cabsanayn. waxaad arkaysaa qofkii oo muraaqabatullah ka luntay, oon ilaahay muraaqabaynayn. xishoodkii baa ka lumaya, kiiradii ayaa ka xumaanaysa,
nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddii aada xishoonayn xishoodkii uu kaa lumay fasnac maa shi'ta waxaad doontid samee saasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam qofka qalbigii baa ka fasaaday waxa uu noqonayaa fayusbixu alqabiixu ladayhi xasanan xumaantii baa wanaag u noqonaysa xumaantii foosha xumayd ayaa wanaag u noqonaysa quruxdii iyo wanaaggii ayaa u noqonaya foolxumo u noqonaya macruufkii iyo wanaaggii ayaa munkar u noqonaya munkarkiina macruufuu u noqonaya maxaa yeelay qalbigiisii baa la qufulay qalbigiisii ayaa xumaaday watabaca allahu calaa quluubihim fahum laa yaclamuun buu ilaahay yidhi ilaahay baa quluubtoodii daabacay ilaahay baa quluubtoodii masaxay ilaahay baa quluubtoodii daboolay ayuu yidhi nebigu ilaahay subxaanahu watacaala wax ay fahmayaan male wax ay garanayaan male idan ta ugu horaysa qalbigiisa fasaadaya ta labaad wejigiisa ayaa madoobaanaya oo fool xumaanaya barakadii baa laga siibayaa wejigiisa nuurkii baa laga qaadayaa quruxdii ilaahay siiyey ayaa ka fool xumaanaysa ibnu cabbaas waxa uu yidhi radia allahu canhu waardaah ina lisayi'ati sawaadan fi lwajh sayi'adu dembigu wejiga wuu madoobeeyaa wadulmatan fi lqalb qalbigana wuu madoobeeyaa wawahnan fi lbadan jirkana wuu daciifiyaa wanuqsaanan fi lrisq arsaaqdana wuu naaqusaa wabuqdan fi quluubi alkhalq khalqiga ilaahay makhluuqaadka ayuu ilaahay qofka cadho ilaahay u geliyaa laa ilaaha ila allah adduunka waa lagu imtixaanayaa imtixaanaad baa jira ibtilaa baa jira mixan baa jira masaa'ib baa jira waxaas oo dhan buu ilaahay soo dejinayaa bisababi dunuub maa nazala balaa'un ilaa bidamb wamaa rufica ilaa bitawba dembi ma soo dego ilaa hadduu soo dego waxaa soo dejiya waa dembi wamaa rufica ilaa bitawba musiibadaa iyo baladaa soo degtay waxaa lagu kor qaadaa waa tawbad